kulantisan saaxiibayaal meel walba daafaha caalamka aad ka joogtaan ku soo dhawaada wararka Soomaalida ee YouTube channelkeena Captain K. qodobada aad ku daawan doontaan warka waxaa ka mid ah madaxweyne Dani oo ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray Qorqor, khasaare ka dhashay weerar al-shabaab ku qaadeen saldhig ku yaala gobolka Bari, iyo Axmed Madoobe oo xil sare u magacaabay gudoomiyihii hore ee gobolka Nugaal. intaas waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee wararka Soomaalida ee YouTube channelkeena. Fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay subscribe ee gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha hela wararka iyo warbixinadeena. Like-na saar si uu muuqaalkan dad badan u gaaro. Wixii fikradaha qaybta commentiga noogu reeb. Mahadsanidin. aynu ku bilownay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa si waafaqsan dastuurka dowlad goboleedka Puntland qodobka 8aad farqadiisa 12 wuxuu maanta furay kala fadhiga ee golaha wasiirada maamulka Puntland. munaasabadan waxaa madaxweynaha kala qayb galay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash, gudoomiyaha baarlamaanka, mudanayaasha baarlamaanka, xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo marti sharaf kale. madaxweynaha ayaa khudbadiisa uga hadlay arrimaha doorashooyinka federaalka ee golaha shacabka, doorashooyinka dhawaan ka dhacaya degmooyin ka mid ah. wuxuu sidoo kale ka jawaabay hadallo dhawaan madaxweynaha Galmudug iyo siyaasiyiin ay Puntland ugu eedeeyeen inay taageerto ururka Ahlusunna. Dani wuxuu sheegay in wax kasta oo amniga iyo horumarka dowlad goboleedyada dalka lid ku ah ayna sidoo kale lid ay ku yihiin Puntland. dhanka kalena al-shabaab ayaa waxaa la sheegay in saakay weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhigga ciidamada dowlad goboleedka Puntland ay ku leeyihiin deegaanka Afurur oo ku yaala duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Koobjoogayaal ayaa waxa ay ku warameen in ilaa iyo ku dhawaad 10 madaafiic lagu weeraray saldhigga, kuwaas oo ku dhacay gudaha saldhigga iyo hareerihiisa, balse aan weli la shaacin khasaaraha ka dhashay. ciidanka Puntland ayaa rasaas culus ugu jawaabay weerarka al-shabaab, waxaana la sheegay in ay duqeeyeen goobtii laga soo tuuray. saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen inay iska caabiyeen weerarka madaafiica ahaa ee lagu soo qaaday, si yeeshee aysan wax faahfaahin ah aysan ka bixin. dhinaca kalena Axmed Madoobe ayaa xil sare u magacaabay gudoomiyihii hore ee gobolka Nugaal. madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta magacaabay gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaaladaas. wareegto uu soo saaray madaxweynaha ayaa waxaa xilkan loogu magacaabay Cumar Cabdullaahi Maxamed. mas-uulkan ayaa hore xilal kala duwan oo u soo qabtay dowlad goboleedka Puntland, isagoo mar soo noqday taliyihii ciidanka madaxtooyada Puntland xilligii xukuumadii Cabdiraxmaan Maxamed Faroole. sidoo kale Cumar Faraweyne waxa uu soo noqday gudoomiyaha gobolka Nugaal xilligii xukuumadii Cabdiwali Maxamed Cali Gaas. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la ugu bariyay mudanaha inuu u dhib yareeyo mas'uuliyadda culus ee loo igmaday. dhinaca kale Axmed Madoobe ayaa Bashiir Maxamed Bahalle u magacaabay hanti dhowraha guud ee Jubbaland. sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu u magacaabay Cabdicasiis Maxamed Xasan xisaabiyaha guud ee Jubbaland. dhanka kalena agab caafimaad ayaa lagu wareejiyay maamulka isbitaalka Guraceel. guddiga gurmadka Guraceel ee uu horey u magacaabay madaxweynaha Galmudug ayaa xishnada daawo ah oo ka kooban 3 diyaaradood ku wareejiyay maamulka isbitaalka Sterling ee Guraceel. agabkan oo loogu talagalay in gurmad degdeg ah oo caafimaad u noqoto kumanaanka qoys ee ku barakacay deegaanada ku xiran Guraceel mudadii banaanka joogeen la soo wariyay in ay wajahayaan xanuuno kala duwan, kuwaas oo wasaaradda caafimaadku sheegtay in dhawaan wax looga qaban doono ka jawaab celinta culeyskaasi baaxadda leh iyo dardargelinta shaqada isbitaalka. wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Galmudug iyo wasiirka haweenka xuquuqul insaanka Uwax Xuseen Dhiblaawe oo guddiga ka wada tirsan ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabada wareejinta daawadan. Dr. Cali Cabdi Muuse iskudubaha caafimaadka degmada Guraceel ayaa ka mahadceliyay taakulada guddigu la soo gaaray isbitaalka Sterling oo ka mid ah xarumaha caafimaad ee ay waxyeeladu ka soo gaaray hubkii la isku adeegsaday maalmihii uu socday dagaalkii Guraceel ka dhacay toddobaadkii hore. ugu dambeyn wasiirka caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiwali Cabdullaahi Jaamac ayaa adkeeyay in gurmadkan caafimaad ay wasaaraddu sii wadi doonto, wuxuuna wasiirku ku booriyay shaqaalaha isbitaalka inay heegan u galaan la tacaalidda bukaanada xanuunada ku soo riteen goobaha loo barakacay ee iminkana bulshadu ka soo laabanayso. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa xarunta madaxtooyada magaalada Xudur ku qaabilay
ururada haweenka gobolka Boqol oo ka dhageystay baahiyaha ay qabaan iyo ka qayb qaadashada horumarka gobolka iyo xaqiijinta amniga. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sidoo kale kulan la qaatay odayaasha dhaqanka degmada Xudur ee xarunta gobolka Boqol. Ururada haweenka gobolka Boqol ee ka qayb galay kulanka ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyay doorka haweenka ay ka qayb qaadashada amniga iyo horumarka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa haweenka gobolka Boqol ugu mahadceliyay dadaalkooda ku aadan dowlad dhiska iyo ka shaqeynta amniga. Wuxuu sidoo kale sheegay in maamulka Koonfur Galbeed ay dadaal badan ku bixin doonaan sidii go'doonka loogu qaadi lahaa magaalada Xudur. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa qasriga madaxtooyada degmada Xudur ka wada kulamo kala duwan oo uu la qaadanayay bulshada iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka. ugu dambeynna guddiga maamulka doorashada kuraasta gobolada waqooyi Somaliland ayaa maanta bilaabatay diiwaangelinta ergooyinka kuraasta golaha shacabka ee tirsigoodu yahay HOB 239 iyo HOB 237. Diiwaangelintan ayaa si habsami ah ugu socoto xarunta Villa Rosa ee magaalada Muqdisho iyadoo ay barbar socoto qabashada codsiga araajida musharaxiinta ee kuraasta kor ku xusan. Maalinta berita ah waxaa tababar la siin doonaa ergooyinka codeynaya. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa ku sugan xarunta diiwaangelinta ergada iyo musharaxiinta iyagoona xaqiijinaya dhammaan hanaanka iyo habraacyada doorashada golaha shacabka. Guud ahaan waa naga inta wararka Soomaalida ee aad ka daawanayseen YouTube channelkeena Captain K. Tan iyo war midkan lacayna intaan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.